wardegdega magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari ee maamulka Puntland ee Soomaaliya maanta waxay u kala xiran tahay ciidamada maamulka Puntland iyo mid kamid ah beelaha halkaas dega Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu qorsheystay cid kaste oo ka aragti duwan ama beel kaste oo ka aragti duwan iyo siyaasi kaste oo ka aragti duwan inuu qoraga caradiisa oo ku caburiyo taasoo ku sugan gudaha deegaanada maamulka Puntland xitaa beelihii wax ka dhistay oo wax kala hay deegaanadaasi Puntland ama talada maamulka Puntland magaalada Boosaaso sida muuqaaladan iyo sidoo kale sawiradan kaga muuqata maanta waxa ka taagan dagaal culus ayadoona ganacsiyadii badankood la xiray ayadoona halka ay labadan ciidan isku hor fadhiyaan ay guud ahaanba dadkii shacabka ahaa ay iskaga fogaadeen ilaa iyo haddana wax dhaqaaqa aysan ka socon xaaladdu waa mid kacsan inkastoo wali uusan dagaalku halkaas ka bilaaban haddana waxa la soo warinayaa in daqiiqad kasta dagaalku uu bilaaban karo maadaama laba ciidan oo awood leh ay halkaasi ay isku hor fadhiyaan soo dhawaada saaxiibayaal daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xiisadan saacadii la soo dhaafay ka taagneed magaalada Boosaaso iyo sidoo kale cid ay u dhaxayso ayaan halkan kula wadaagi doonaa muuqaalka la gareeya qaybta hoose comment aragtidiina aan kula wadaag channelka Faruura si ay soo gaaraan wararkii warbixinada xigay halkan aynu ku soo daabacno haddii aynu ku bilowno magaalada Boosaaso waxa ka taagan xiisad iyo sansaan colaadeed oo u dhaxaysa xukuumadda maamulka Puntland iyo sidoo kale mid kamid ah beelaha dega gobolka Bari xukuumadda maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaana ciidamadan iyo sidoo kale gaadiidkan dagaal oo idin muuqda waxay u soo saartay inay baajiso xaflad mid kamid ah beelaha gobolka Bari ay ku dhiga lahaayeen hotel Jubba oo ku yaala magaalada Boosaaso bartamaheeda halka oo ciidamadan iyo sidoo kale xilligan xiisadan ay ka taagan tahana xiisadan xilligan halkaasi ka taagan ayaana waxa ay saameysay isku socodka iyo sidoo kale ganacsiga magaalada Boosaaso oo ah xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland ee Soomaaliya oo muddooyinka u dambeysay si weyn uga xasilneed colaadii inta badan u dhaxay jiray beelaha halkaasi degay sidoo kale xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni hase yeeshee maanta inta badan magaalada Boosaaso wadooyinkeeda waxa lagu soo daadiyay ciidamada u fara badan kuwaasi oo ka amar qaata Saciid Cabdullaahi Deni ciidamada dawladda iyo sidoo kale ciidamada maleeshiyaadkan oo aad u hubeysan ayaana xilligan halkaasi isku hor fadhiya inkastoo dagaal halkaasi uu ka socon haddana saasaanta xilligan halkaasi ka taagan iyo sidoo kale muuqaalada sawirada laga soo waaridayo ayaa waxa ay muujinayaan in xilli kasta oo halkaasi dagaal uu ka bilaabo doon inta badan ganacsatadii ku yaalay argada gaaca ilaa iyo shirkadda biyaha ee bartamaha magaalada Boosaaso ayaa xiran halka dadka shacabkana ay iskaga fogaadeen aagaasi maadaama xilli kaste ay xabadu halkaasi ay ka dhici karto dhawaan ayayna ahayd markii xubno xilal ka haya xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ay u hanjabeen siyaasiyiinta gobolka Bari madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni 7 sano ee xilka maamulka Puntland oo hayay ayaana halkaasi tiro ka dhowr jeer waxa ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay ciidamada maamulka Puntland siyaasi ka aragti duwan iyo sidoo kale beelaha ka soo jeeda gobolkaasi Bari ayadoona Saciid Cabdullaahi Deni inta badan lagu eedeynayo in uu dagaal iyo sidoo kale maqoonin awood ay ku dheehan tahay oo adeegsanaya maleeshiyaadka iyo sidoo kale beelaha ka aragtida duwan siyaasiyiinta ku sugan deegaanada kala duwan ee maamulka Puntland ee Soomaaliya oo ay ugu badan tahay gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ah xarunta ganacsiga maamulka Puntland sidoo kalena xarunta baarlamaanka maamulka Puntland